وودنك معناها أنا قدرت كأن قرنيو عن صاحبة الحين هدي أن قياسه ما قياس كره لكن أديك وحن أملي تقريبا لا بقول كبدني وأنت أنا قانع صاحبك هنا اللي دلي أنا وح الله لي عد اسوي دي سنة مالي وحن قرنيا وحيالي يقول يا بنا معناها إلهي سبحانه وتعالى يقول قال مالي با أنا كوفيت يرقبه أو ود الصعدة يا واحد عظيم إلهي أمرك بالكالة ماله يقص قادين ماذا حين يقول أفتو دمعي بقول كي بس Soomaaliya soo Afrika waxa loo dilo Soomaalidu way dagaalantaa dadka hadda Etoobiyaanka iyo Bangladesh iyo dadka kale Pakistaaniga lama dilo iyaga because marka loo yimaado wis dhiibaya laakiin Soomaaligu wuxuu taagan yahay macnaha isaga hadaan dhimanaya si xaraga la dhimanaya marka jaakad weyn waan qabay xilli winter ahead Ilaahay amarkii anoo socdo baan waxa arkay koofiyada iga dushay iyo xabadii kor martay kadaal baan fiiriyay marka koofiyada socota waa si orday macnaha ma istaagin ba annagoo meesha ku xiran yaa 33 qof oo ka yimid Mozambique yaan annagoo taban Soomaaliya hal qolna lagu xiray nimankii marka waxay sameeyeen inay guumeystaan bilaabeen cuntadii bay naga qaataan bustayaashii bay naga qaateen xilli winterna waa ahayd annagii waa tashanay marka dad waxa garanaysaa 2 bilood soo taariibay oo Soomaaliya macnaha tabartooda waa iska yartaay waa tashanay waxaan nimankan iska celino haddii aan iska celinin waxa weeye sidaan kuma noolaan karno bas waxaan sameeysanay saxamadii cuntada nalagu keenay ma arursanay dhinac baan dhiganay salaadii casar markaan tukanay baan ducaysanay adkaar baan akhrisanay saxamadina dhinaca marsanay hal mar baan dagaal ku bilownay nimankii ilaahay amarkii dhowr nimanka dhiig ka keenay way cabsadeen dhinac bay isku kuuseen iyagoo 33 anagana 10 baanan bas askartii baa loo dhawaaqay askartii baa soo gashay waxa la yisay wax u dhaceen nimanka waxay banaanka u baxeen iyagoo dhigay waxna Soomaalida baa nalays askartii waxay dhaheen idinka macnaha askar baabatiin macnaha 10 qof ay 33 qof ku dishay waxa la yiri waana la garaacay annagii noqda la yiri nimanka weydiiyay waxay dhaheen hadaan ku noqono Soomaalida way dilayaan askartii waxay noqotay in meeshii noqoto macnaha TV xataa la keeno adigu anigoo xabsiga ku jira Ilaahay amarkii ayaa waxa dhacday waxa la yiri qof walba qofkaaga waco maadaama nin walba macnaha qofkiisa qof walba ku saadaya Ilaahay amarkii walaalkay oo nambarkiisa hayo marka ilaa iga soo kaxay Soomaaliya ayaan wacay nambarkiisa marka aan wacay walaalkay nambarkiisa voicemail baa iga qabtay aniga waxaan isla malaha ninka nambarkii baa ka damay malaha lambar kale uu qaatay bas waa iska joogay Ilaahay amarkii maalinkan saa u saabaxay xabsiga ma yarta aanu xabsiga ku jira yaa waxa dhacday Soomaalida kale aan la xirnaa qof walba qof baa u yimid oo ka saaray Ilaahay amarkii ani yar kala isku saharnay jarkii marka qofkii soo deynaya yimid wuxuu yiri war adiga cid ku saadaysan ma haystid miya ma waan ku riniyo walaalkay baa waday isagana nambarkiisa ma shaqeynay saas aha ninkii baa isii daayay waan soo baxnay meel maqaxiyuna keenay cuntuna si khayr Allah si waa qabaysanay lambar baa la yidhi waxa walaalka waca markaan walaalkay wacay nambarkiisa voicemail baa iga qabtay anigii waa shakiyay marka bas eedadii oo Soomaaliya joogtaan wacay eedadii marka ilaa 10 bari xiranay walaalkayba 10 bari baa la dilay anigana warka ma hayo marka waxa dhacday eedadii baan wacay anigina waa leelaa Nuur Ismaaciil miyaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bay gutay eedo lambar ba ii qortay lambarka ii qortay marka oday adeerka yaale waxay gutay lambarka waa adeerka baale anigii waa naxay marka adeerkii baan wacay lambarkiisana voicemail baa iga qabtay Ilaahay amarkii waxa dhacday eedadan ku socday waxaan ku yiri eeday Maxamed maxaa ku dhacay waxay gutay eedan Maxamed maali 10 bari koor baa la dilay anigu macnaha wadanka waan ku cusbahay waa ninkii Soomaaliya iga soo kaxeeyay waa ninkii indhaha ii ahaa meel aan aadama garanayo macnaha waxa weey naxdin iyo qaracan bas Ilaahay amarkii Soomaalida meesha joogtay baa qaaraanay wax ii guray ilaa Johannesburg baa la keenay Johannesburg markii la keenay tuulo kale gobol kale oo la yiraahdo Port Elizabeth ayaan tagay gobolkii marka aan tagay walaalkii marka wuxuu iga tagay 2 tukaan iyo baabuur buu iga tagay marka laakiin lacag cadaan lama helin bas anigii marka nin aad u yarna waana xilligaas dad badan baa way la taliyeen go'aan adigu waxaan ku qaatay inaan tukaamadii gadin oo aan shaqeysto anigoo aaminsan qadarta Ilaahay iyo waxa weeye waxay u dhacay inaan qorneen tukaamadii baan ka shaqeystay waxa dhacday dhowr jeer ayaa la igu saagalay nabar dhuunta xataa iga yaala mar baa la igu dhuftay waxa weeye intaas jeer baa la iga dhacay baabuur aan watay mar adeegiisana waa la iga qaatay meeshii dhib badan baa igu gaaray anigu sidii yaa iska daala dhacaya yaa Ilaahay qudradii waxa dhacday habeenada kamida anagoo intaan tukaankii nabad ku xirnay casheynay ayaa qayla soo yeertay qaylada markii soo yeertay in baan fiirinay mise waxa way afarta qalbaa la isaga yimi adigu tukaankii waxa dhacday boobana lagu bilaabay labadii wiil oo shaqaalaha ila shaqeynayay waxay dhaheen anaga maadaama khatar aan galnay baabuurtii booliska nabad waxay waan raacinaa because nafteena u baqaynaa anigii de waxaan nin lix jecel ay qabatay bas waxaan ku yiri masaas aha iga tagaan ku anigu xantideedan ku dhex dhimanayaa
askarigii booliska marka waa iga tegay wuxuu yiri my friend aniga mas'uuliyad waxay iga saaran tahay inaan naftaada badbaadiyo saas ahaa waxaan ku yiri aniga hantideeda aniga nafteeda iyo hantideeda badbaadi kala waa siida bas ilaahay amarkii askariga wuu iga tegay marka waxa dhacday dukaankii marka waa laba qol buu ahaa dab baa la igu shiday marka si la arkay meeshan ku jiro dabkii markuu igu soo weynaaday aan arkay in la arki rabaan albaab gadaal ku yaalay baan ka booday xaafad aan islaan aan isku fiicneen oo dadku dad fiican oo waaleyn dad xun oo waaleyn islaan aad u fiicneed baan xaafadeeda galay qol dambe i gelisay sariir bay hoos gelisay dukaankii meeshii ku ololay ilaahay amarkii boolis kala yimid boolis markuu yimid baa habarta u baxday waxay tiri my friend halkan ku jira gurigayga booliskii baa iga meesha iga qaaday habeenkaas waxaa iga gubatay haddii aan ku qiyaasay adiga $30,000 meelahaas baabuurna horaa laygu dhacay ilaahay amarkii waxaa weeye markaa lacag caddaan oo macnaha dhul ii taale ma lahayn dukaanka xilligaas xilli aan camirtayba waxaa dhacday meel cidlaan soo istaagay dadku waxa weeye markii waxa weeye hanti badan dhaafto waxa weeye stress baa ku dhaco waxay dhahan see hantidan kugu dhaaftay iyo macnaha aniga waxaan idhi nin hantidan ilaahay baa ku siiyey imtixaanna way ahayd shaqayso hadduu ilaahay caafimaad ku siiyey ilaahay wuxuu qadaray ninaa ani ii shaqayn jiray inaan u shaqo tagay ninkii marka xilligan ani ii shaqaynay si fiican baa ula dhaqmay si fiican buu ila dhaqmay muddo markaan shaqaysanayay xoogaa haddana hanti kalaan isku aadistay dukaan kalaan furtay dukaankii kale haddana dhowr bilood anoo jooga haddana la yimid waa layga gubay haddana waxaan sameeyey baabuur baa haddana shaqaalaan dib u galay xoogaa baan shaqaystay baabuur baan gatay waxaan bilaabay inaan alaab wareejiyo iyo dukaamada alaabaa ku wareejiyo maalin baa anoo dukaan alaab dhigaya intii la yimid baa macal baabuurkayga laga qaatay iyo waxaan haystayba bas waxaa dhacday haddana shaqaalnimaan galay anigoo sidii shaqaalnima yaraan saaxiibanahay baan u shaqo tegey adigu xoogaa markaan shaqeeyey baan haddana waxaa weeye xoogaa shaqaystay waxbaan isku aadisay baabuur kalaan gatay adeeg alaab areejiyo baan ku noqday ninaan saaxiibanahay oo aad waddanka igu soo dhaweeyey oo la yidhahdo qorane cali xaaji ilaahay ha naxariistan ha ka waraabiye iyo habeen ciida ayuu isoo wacay rabadaanna ismaannaa maqlay wuxuu yidhi nuurow birri inaas aragnaan rabnaa ilow arrin muhiimaan kaa leeyahay waayahay baan habeenkii dhowr jeer buu isoo wacay waxaan ku yidhi niyow ayaanta imada soo wici jirna walaalo maxaa dhacayo niyow maanta qalbigaa kuu soo jeeday ilaahay qudraddii labadii habeenimo markay taalay soo wacay ninkii qoranaa waa la dilay meeshii baan ka orday dukaankii baa tagay mise waa ninkii yomeyda micnaha waxaa weeye waddanka waxaa ka dhacay South Africa micnaha qabuuraha ku yaala magaalada Port Elizabeth waxaa lagu qiyaasaa 700-600 Soomaalida lagu dilay waxyaalihii igu darnaa intaan South Africa joogay waqtiga igu yar waan soo gaabinayaa waxa igu darnaa oo weligay aan ilooweyn hooyo iyo gabadheeda iyo wiilay dhashay iyo cunug yaroo laba jir ah intii la googooyey oo cad loo jaray bacaha madowga qashinka lagu guray micnaha waxyaalihii igu yaabadnaa Soomaalida la gubo la dhaca dilka waxa way joogta male marka taariibka waxa weeye iyo waxa way waddan shisheeye horta qof walba waddankaaga wax ku dhaama ma jiro meel walba tag waxa weeye waddankaaga hooyo waxa sharaf aad kaga leedahay iyo haybad ma jirto marka walaalayaal aniga dhalinyarta soo tahriibaysa waxaan dhihi lahaa ama ha noqoto kuwan badda soo maraya ama kuwa South Africa hadda ku haminaya ama kuwa tahriib u socda horta tahriib waxa weeye waa halig waa naftaada haligaysid waxa weeye macnaha dal shisheeyana waxa weeye ilaahay baa xaalkiisa og marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa dhalinyarta taariibta in laga waantoobo welibana Soomaalida South Africa waxaan dhihi lahaa arrintooda in aad looga hadlo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye waddankaas dhib badan baa ka jira fadlan ku soo biir tusaalaha media si aad u hesho muuqaalo cusub oo xiiso leh